dad badan waxay isweydiinayaan su-aasha ah beesha caalamka gaar ahaan maraykanka soomaaliya ma sii kala qaybinayaa mase runtii waxa waaye wuxuu ka shaqaynayaa danahooda markaan aragnay inuu waxa waaye maamul goboleedyada uu la shiraayo midba uu la shiraayo si gooni ahna uu la shiraayo dowladda federaalkana uu la shiraayo waxaad arkaysaa in waxa waaye ciidamo maraykan ama africom ama meelo kale ka imaanaya ama beelo caalam oo meelo kale ka imaanaya ee maamul goboleedyadii ama waxa waaye nimanka gooni goosadka ah si gooni ah waxa waaye runtii ula shiraya waxay kala shiraan mataqaanid Soomaaliya waa sovereignty ayay ku leeyihiin waa dal madax bannaan waxaan kala hadalnaa ayay ku leeyihiin arrimaha amniga war Soomaaliya haday dal ay tahay arrimaha amniga soo dawlad federaal soo Soomaaliyeed ma jirto maxaa keenay in wax waaye maamul goboleed Jubbaland la shiro maxaa keenay Puntland in la shiro maxaa keenay gooni goosad Somaliland in la shiro haddii ay arrimo amni kala shirayaan Hirshabelle maxay kala shiri waayeen maxay Galmudug ugu shiri waayeen maxay Koonfur Galbeed ugu shiri waayeen iyagaba halkaas caqabado fara badan oo shabaab ayaa deegaanadaasi tudo amni ayaa haystee maxay ugu shiri waayeen ma aanan arag aadan madoobe oo ay la shirayaan ama ka horba lafta gareen oo ay la shiraan ma aanan arag cali guudlaaw oo ay la shiraan ma aanan arag qoorqoor ay hore ula shireen ma aanan arag soo amni arrimahooda uma baahna dalkooda iyo deegaankooda iyo goboladooda soo arrimo amni kama jiraan marka ay waxa waaye Axmed Madoobe kala shiraan dana gaar everybody knows waxay kala shiraan Axmed Madoobe waa arrimaha Kenya iyo arrimaha Mombasa iyo runtii waxa waaye deegaanadaasi tud Mombasa oo ay base aad u ballaaran ka samaysanayaan iyo runtii waxyaabo qarsoodi ah oo hadda runtii la leeyahay Israa'iil ayaaba runtii ciidamo iyo bases kule meesha la yiraahdo waxa waaye jasiiradahaasi tud runtii ilaa ay Ongoma iyo meelaha waxa waaye Ras Kambori deegaanadaas oo dhan ciidamo qarsoodi oo runtii waxa waaye Turkiga iyo arrimihiisii waxa halkaas tud bases laga basaasan laga samaysanayo marka waxa dalkan ay u kala qaybinayaan waxaan la yaabanahay laftirkeeda dawladda federaalka eedda aan u soo jeedina ay tahay inay wax waa markay arkaan beel caalam oo Nairobi kula shirayso Cabdiraxmaan Cirro waxay kala shiraan laba yaqaan dalka waa sovereignty waa ku leeyahay aqoonsi dalka ahaan ayaan u aqoonsanahay Soomaaliya la yiraahdo markay waxa waa Saciid Cabdullaahi Haddana la shirayaan oo ay kala shirayaan arrimo amni soo uma baahna soo fardhiyo uma baahna arrimo amni in laga shir laftirkiisa deegaanka waxba isuba jiraan waliba Somaliland markay la shiraan oo runtii waxa waaye iyo Puntland oo ay u dhaxayso waqooyi bari maxaa looga shiri waa arrimo amni markii buuraha haysta silsiladaha ah waa waxa hadii Daacish soo ay ku soo dhuumalaysanana halka ay soo mari lahaayeen soo ma in iyadana laga shiro marka waxa waaye waxba qarsoon Soomaaliya in la kala qaybinayo la kala diraayo dara gaar laga leeyahay la kala firdhinayo ayaa meesha ka soo socoto laakiin waxa waaye hadii aysan dawladda waxa waa mowqif cad aysan ka qaadan Mareykanka oo runtii waxa waaye maanta aysan xaaladda ay Mareykanka uu ku socdo ay waxba ka bedelin markan hadda xoo dhaqaalihiisa waa u goostay Amazon cid wax si habeeraatay ma jirto USAID lacagteeda waa u goostay oo hay'adihii humanitarian lacagtooda waa ay goosteen marka still waa ay ugu shirayaan Axmed Madoobe oo ay ugu shirayaan Saciid Cabdullaahi Haddane oo ay runtii wax waa kula shirayaan Cabdiraxmaan Cirro haddii aysan dana gaara kale dalkeennii lacagihiina iyo dhaqaalihiina waa ka goosateen at the same time waxaa leedihiin waxaan kala shiraynaa arrimaha amniga aad kala shiraysa aniga Soomaali ah waa kala shiraysa iyagana waa kala shiraysa you have sovereignty iyo xadkayga ayaa ku soo xadgudubtay la yiraahdo dawlad baa tahay dawlad baan nahay maadaama dhaqaale aysan ku siin ciidanna aysan ku tababarin marka waxa waaye boontigaasi tud waa boonta cad haddii aysan dawladda mowqifkaana aysan meel dheer aysan ka gaarin bari waxaan arkaynaa in waqooyi galbeedna meeshii la oran jiray Somaliland maamulka la magac baxay in la jiri doono dawlad in laga samaysan doono runtii waxa badda cas iyo deegaanadaasna inay waxa waaye Israa'iil gacanta ku dhigayso Mareykanna waxa qorshaha ku shaqeynaa waa waxa uu u shaqeynaa waa Israa'iil iyo Netanyahu wax cad is clear waa wuxuu maamuladan ula shiraayo dalka u kala haayo imaaraad u adeegsanay intaba waa la yaqaanaa laakiin inta goor tahay haddana arrimaha wax laga qaban waxay imaanaysaa dalkaas inuu kala tago mas'uuliyadeedana hadda waxa iska leh dawlad kastoo timaada iyo dawladda hadda joogto haddii aysan wax waaye bayaan cad aysan ka soo saaran visa la soo saaray waxaa arkaysaa wafdi ajnabi ah ee ku shiraya Hargeysa xaguu ka soo galay yaa ogolaashaha u siiyay waa mistake marka waxa waaye arrimahaas waa in wax laga bedelaa
runtii tan waxay keenaysaa in dalkaas uu kala tago dalkaas inuu kala qaybsamo